madax inuu ku xanuun waxyaabo badan aad sababi karo, laakiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo 5 ciladood oo indhahaaga qabsan karto oo kuu sababi karto inay madax ku xanuunaan. mar kale waa aniga istiraxiya ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. 5 xaaladood oo indhahaaga qabsan karto oo kuu sababi karto inay madax ku xanuun ayaa kow ka ah daciifidda aragga. midaas oo noqon karto daciifidda aragga fog, midda dhow iyo nooca astigmatism. weliba daciifidda aragga dhow iyo astigmatism haddaa leedahay oo nooca daciifidda aragga ah, madax xanuunkeeda aad ayuu kaga badan yahay nooca kale. arrinta labaad waxay tahay indho qalooc. indho qalooc markaa waxaa laga yaabaa in aad caadi u arki kartid oo indho qalooc muuqdo oo noqon karo, ma marka qaarna waxaa laga yaabaa indho qalooc qarsan oo noqdo, taasoo keeni karta in uu madaxa kula xanuuno. mid saddexaad waxay tahay cillad murqaha iyo isla shaqaynta indhaha qabsan karto, taasoo keeni karta in labada indho midkoodaba inuu qaab gooniya u shaqeeyo, taasoo keeni karto in ay isla shaqaynta indhaha ay adkaato, kadibna madax sidaas uu kula xanuuno. qodobka afraad waxay tahay barar indhaha mise infection. badanaa waa isla xiriiraan, qofka waxaa laga yaabaa indhaha haddii infection uu ka qaado ama barar indhaha haddii uu qaado laftirkeeda waxay keeni kartaa in xubnaha qaar oo inay cadaadis u fuulo, kadibna sidaas uu madaxa uu kula xanuuno. qodobka ugu dambeeya waa qodobka shanaad ayaa waxay tahay biyaha indhaha ku furma iyo glaucoma. biyaha indhaha ku furma iyo glaucoma marka qaar waxay noqon kartaa inaad si kedis ah u dareentid oo dhakhtarka indhaha inaad u tagtid, kadibna sidaas lagu ogaado inaad glaucoma leedahay, kadibna lagaa daaweeyo. laakiin marka qaar glaucomaha ama biyaha indhaha ku furma markaa inuu isqariyaa laga yaabaa, cadaadiskeeda markaa inuu kor u kaca laga yaabaa. haddii aan la kontrolin ama daawooyinkeeda saxda aadan qaadan, waxay keeni kartaa inuu madax sidaas uu ku xanuuno. ugu dambeyntii, haddii madax xanuun guud aad isku aragtid, waxaa lama huraan inaad dhakhtarkaaga u tagtid, la ogaado midda madax xanuun ku keenaysa midkuu yahay. haddii indhaha ay u sababeysana, arrinta ugu koowaad aad samayn karto waxay tahay baaritaan indhaha guud inaad samaysid, kadib cilladda markii la ogaado oo lagaa daawo waxaa laga yaabaa ay u badan tahay weliba madax xanuunka inuu halkaas uu ku ekaado. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabin. haddii aad muuqaal ka faa'iidaysto like noo saar, meel walba adduunka joogtiin waxaa idin rajaa caafimaad iyo indho fiyow.